السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة سدحات يتحانيه الناس سومالي وين وحنا إنه مقال كنا إن شاء الله كإيجينا إسلام كيوم ده السومالي وين. إسحاقلك كده حيب بلشوين كحيبها بدعص حيبها بدوين تهندية جزيرة عربيد إيا مصر وحوها مدقون إيا سوچرين وحنا أستانوا وإنوغا شدال قادن كرنا هجروين كي عربتي أصلك أهيد إيا سفر كي بقرد حتشبسوت أي كتمي دالك أدوغا أما بوتلان إيادو الرادين يساعد الرؤية دير ودقون لي سفر كاسنا وحوها صدحكم إيا شم بقل أو سنو كهر تاريخ الصوماليا وتاريخ كردلتي falgalkii ka dhaxeeyay ummadii jasiiradda Carabeed iyo Afrikaankii gudaha ku jiray iyaga ayaana ugu horeeyay Soomaalidu cid aqbasho dacwadda Islaamka aqbalistaas iyo ajiibistaasna waxa loo aanaynayaa xiriirkii wanaagsanaa ee hore uga soo dhaxeeyay Carabta iyo Soomaalida waxa iyaguna xilligaas dhulka Soomaaliyeed ku dhaqnaa jaaliyado ballaaran oo Carab Yamaniyiin ahaa waxana keenay geeyiga Soomaaliyeed dumitaankii biyo xidheenkii weynaa ee ay Yamani ku tiirsanayd ee Ma'rab oo dumay 575 miilaadiga kuwaas ayaana halkaas ku soo dhaweeyay baaqa Islaamiga iyaga ayaana noqday jidka u horseeday Soomaalida iyo qoomiyadihii kaleba islaamnimada waxa loo badinayaa in Soomaalidu ay islaameen nabiga oo noolba oo ay baaqa Islaamiga soo gaarsiiyeen asxaabtii u soo hijrootay dhanka Xabashidu asxaabtaas ayaana ka dhisay malcaamado deegaanada Eritrea iyo Soomaalidaba xilligaasna waxa ay ahayd markii uu Islaamkuba 5 sano jiray oo ku aadan 5 sano ka hor bilowgii tirsiga Islaamiga ee hijriga intaas kadibna waxa uu Islaamku si dhab ah u hana qaaday oo aqoon iyo cilmina uu ku kordhiyay Soomaalida markii ay waayo dambe yimaadeen jaaliyado Carabeed oo guuraya oo soo hijrooday waxana ay hijrooyinkaasi soo bilaabmeen waayihii khaliifkii Amawiga ahaa ee Cabdulmalik ibn Marwan oo ku aadan 75 ilaa 86 hijriga ama 680 ilaa 705 miilaadiga waayahaasna dadyo badan oo Carabeed ayaa u soo firdhaday xeebaha Soomaalida iyo xeebaha kale ee Afrika iyaga oo ka soo baxsanaya gacantii birta ahayd ee ay ku maamulayeen Amawiyiintu ciidii kulli diday ee ku mucaaradayba waayahaasna khilaafadii Amawiyiinta ayaa soo gaadhay xeebaha bariga Afrika iyada oo daba joogta sababo ay ka mid yihiin inay gacanta ku dhigaan dadka dambiyada siyaasadeed loo aanaynayo ee soo baxsaday inay bartaan juqraafiga iyo habnololeedka deegaanadaas si ay u sii baahiyaan furashadii Islaamiga ahayd ee diinta lagu faafinayay iyo inay isdhexgalaan ciidaha ay xuduudaha wadaagaanba hijrooyinkaas ay Carabtu ku soo gaadheen xeebaha Soomaaliyeedna waxa ka mid ahayd hijradii labadii walaalaha ahaa ee ilma Cabaad al-Jalandi oo ka dhashay qabiilka Asdi kana arriminayay Cumaan kadibna ku kacay oo ku gacan saarey khaliifka Cabdulmalik ibn Marwan sanadkii 75 hijriga oo ku aadan 694 miilaadiga waxa iyaduna kamid ahayd hijradii Zaydiyiinta ee inta ay Yemen ka yaaceen ay aadeen xeebaha Banaadir ee ka agdhow Muqdisho sanadkii 739 miilaadiga kadib markii lagu dilay Zayd ibn Ali magaalada Kuufa waxa iyaduna kamid ahayd hijradii walaalihii todobada ahaa ee ka dhashay qabiilka Bani al-Haris ee Carabeed iyo sidoo kale hijradii Farisiyiintii Shiiraasiyiinta ahaa ee qarnigii afraad ee hijriga ama qarnigii 10aad ee miilaadiga waxa iyaduna kamid ahayd hijrooyinkaas tii Suleymaan ibn al-Mudaffar an-Nabhani oo ka arriminayay Cumaan iyo xirtiisii ka agdhoweyd ay ku tageen xeebaha Soomaaliyeed sanadkii 203 miilaadiga waxana ay kala guursadeen oo la xidhiideen qabiiladii xeebaha deganaa ee Soomaaliyeed waxana ay qoyskaas Nabhaniyiinta ah ka dhisteen boqortooyo xeebaha Kismaayo Barawe iyo Muqdisho iyaga ayaana tilinayay oo ka arriminayay deegaanadaas ilaa ay Burtuqaaliyiintii jabiyeen oo ka adkaadeen qarnigii 15aadna waxa ka yimid deegaanka Xadramuut ee Yemen koox ka kooban 44 Carab ah oo dadka diinta ugu baaqaya waxana ay ku soo degeen Berbera halkaas ayayna kaga hayaameen oo kaga faafeen dhulka Soomaalida si ay dadka diinta u baraan mid kamid ah oo la oran jiray Ibrahim Abu Zarbayna waxa uu socday ilaa Herar 1460 miilaadiga halkaas ayuuna ka faafinayay dacwadda ilaa uu ka geeriyoonayay qabrigiisina waa Herar oo wali muslimiin badan ayaa booqata oo siyaarata Berberana wali waxa ku agtaala buur la yiraahdo buurta awliyada oo loo aaneeyo xusitaanka raggaas culimada ahaa oo la sheego inay khalwo ku galeen intii aanay kala tagin ee dacwadda jihooyinka ula kala bixin
heerkaas iyo marxaladaas soo taxnaa ilaa laga soo gaadhayay qarnigii 15aad ee miilaadigana arrimaha laga dhaxlay waxaynu ku soo koobi karnaa 1 soo ifbaxa goobo ganacsi iyo maamulo carbeed oo islaami ah oo ka dhismay xeebaha Soomaaliyeed iyo xeebaha Afrikada ka agdhowba 2 maamuladaas oo isu bedelay dawlado taxnaana inta ka dhaxlay saylac ilaa webiga Hawaash oo ah marin ganacsiyeed muhiima 3 loolan ka dhaxaloosmay dawladahaas yaryar ee islaamiga ah oo ay dhexdooda loolameen iyo loolan dibadda ka ahaa oo ay la gashay boqortooyadii guunka ahayd ee Kiristaanka ahayd ee Xabashidu haddaba dawladahaas yaryar ee islaamiga waxa lagu naanaysaa dahaadhka islaamiga ah oo dhammaantood xeebta ayay ku taxnaayeen ee gudaha uguma ay arooreen dhulka oo uma ay dhaadhacayn marka laga reebo saylac oo marmariyadu yara durki jirtay oo gudaha u gali jirtay Xabashida si iyaduna aan dhaafi jirin deegaanada qoomiyadaha islaamiga ah degan yihiin boqortooyooyinkaas yaryar ee deegaanadaas ka dhismayna waxa ka mid ahaa Ifaat Dawaaro Arabiini Hadiyatu Sharxa Baali Harra jasiiradda Dahliik magaalada Muqdisho iyo magaalada Cadal markaad u fiirsato waxaad dhaadaysaa gidgadoonka Sooyaalku inuu halkaas si rasmi ah uga soo bilaabmay waxana ay noqdeen awoodo isu dheeli tiran oo kala ah awood doobiyeysa oo degaan ballaaran haysata diinna difaacanaysa oo Kristan ah iyo awood doobiyeysa oo degaan ballaaran haysata diinna faafinaysa oo Muslim ah arrinkan isaga oo ka faalloonaya ayuu yidhi filosofkii taariikhyahanka ahaa ee reer Ingiriis ee Arnold Joseph Toynbee markii uu Ilaahay abuuray Itoobiya uma uu sameyn hal dul oo ah dhul kore oo sareeya ee waxa uu sameeyay 2 dulood waxana uu ku kala baray tog kala qoqobaya oo kala go'doominaya waxana uu ka dhigay 2 dulood oo isku waajahan oo midba mid dhufayska ugu jirto islaamku waxa uu u gabanayaa Kiristaanka hererna waxa ay waajahaysaa Addis Ababa dusha Xabashida Kiristaanka ahi waxa ay u qaylo dhaansanaysaa waqooyigeeda iyo dawladaha reer galbeedka Kiristaanka dusha Soomaalida Islaamka ahina waxa ay u qaylo dhaansanaysaa barigeeda iyo dawladaha islaamiga ee bari ka xiga asaasankaas boqortooyooyinka islaamiga ah waxa uu go'doon cunaqabatayna badii ka saaray Xabashida sidoo kalena diin faafintii ay muslimiintu wadeen waxa uu gilgilay jiritaankii maamulkii Kiristaanka ee Afrika ugu sitay dawladaha salista ku ahaana waxa ugu cadcadayd Ifaat oo uu asaasay Suldaan Umar wal Samic oo ahaa tafiirtii Sheekh Yuusuf Kaynuun ama Sheekh Yuusuf al-Kawnayn oo ku magac dheeraa oo barkhadle maamulka boqortooyadaas yarna waxa iska dhaxlay 35 suldaan oo kala dambeeyay suldaankii u dambeeyayna waxa uu ahaa Maxamed ibn Ibrahim oo talinayay muddo 7 sanadood ah oo ku aadaneyd 987 hijriga oo ku beegan 1583 miilaadiga suldaankaasna sidii aabayaashii ayuu ku dhintay dagaaladii uu kula jiray Xabashida Kiristaanka ah dagaaladaasna waxa ay ahaayeen kuwii soo afmeeray awoodii ciidan ee ay lahayd herer oo aan iyaga ka dambeyn dibna aanu dhismin maamulkii aagaasina waxa uu u wareegay dooxada Cawsa waxana uu arriminayay Danaakisha ama Canfarta waxa uu soo saaray oo dhalay dugsigii tababarka ciidamada ee herer hogaamiye mujaahida oo dagaalyahan ah oo la oran jiray Axmed ibn Ibrahim al-Jurran ama al-Gurran al-Gurranna waxa ay ahayd naanays oo waa qofka gurran ama gacanta bidix ku adeegta waana hogaamiyaha ay Soomaalidu u taqaano Axmed Guray waana ninka ummadda calanka u siday intii u dhaxaysay 1501 ilaa 1542 imaamkaas Axmed Guray waxa uu 10 sano gudahood galay 60 dagaal oo 60 kaba uu ka adkaaday Xabashida oo uu ka guuleystay waxana uu furtay badiba dhulka Itoobiya maanta haysato waxana uu jabiyay oo dilay boqorkii Xabashida boqortooyooyinkii iyo ismaamuladii islaamiga ahaa ee yaryara oo dhanna wuu mideeyay oo dhan ayuu u wada jeediyay isaga ayaana caynaanka u qabtay caasimadna waxa uu uga dhigay herer ma uu hakan ee markiiba waxa uu ku duulay Aksum oo ah dawladii iyo caasimadii guunka ahayd ee Tigrayga wuu furtay haddana waxa uu ku duulay dushii Xabashida ee galbeed wuu furtay haddana waxa uu ku duulay deegaankii iyo deegaanadii Yuhuudda madmadow ee loo yaqaan Beta ama Filasha ee degtaalka uu ka soo rogmaday webiga Niilka buluuga ah oo ah agagaarka iyo gacmada deegaanka Taka ee iminka Suudaan ka tirsan wuuna furtay halka hadii uu xal marayo ayay Yurub isla oogsatay waxa ay dhaadeen in dhuuntoodii la soo gaadhay oo hadii Xabashidaas Kiristaanka ahi ay Afrika ka baxaan
oo la qabsado dhulkooda aanay dhankaas waxba u oolin axmed gureyne inta nafi ku jirto aanu hakanayn xabashidiina ay quus galeen waxay iyaduna taas u wehelisay reer yurub werwer hor leh oo ay ka qabeen dumitaanka dowladii nuubiyiinta ee iyaduna kiristanka ahayd ee suudaan ka dhisnayd xilligaasna waxaa ugu dhaqdhaqaaq roonaa yurub burtaqiiska isla markiibana waxa uu ciidamo gurmada u soo diray boqorkii xabashida balse hogaamiyihii ciidankaas ee christopher de gama waxaa gacantiisa ku dilay oo u qurgooyey geesigii axmed gurey ahaa sanadkii 1542 duulaanadaas imaam axmed gureyna waxaynu kasoo dhiraandhirin karnaa 3 raadka koobaad waxay sababtay imaanshaha ciidamo macatibley ah ama saliibiyiin ama crusaders ah oo burtaqiisa oo isa soo dhoobay xeebaha Afrika si ay u ilaaliyaan kristanka una mariyaan muslimiinta aakhirkiina waa kuwa horseeday inay gudaha soo galaan diin faafiyayaal iyo sahmiyayaal kristan ah oo iyaguna keenay gumaystayaal gurmadarabkii iyo qayladhaantii uu u dirsanayay imaamkii axmed gurey khilaafadii cusmaaniyadda si ay uga dhiciyaan shisheeyaha burtaqiiska ee ku soo duulayna waxa uu sababay inay cusmaaniyiintii qabsadaan deegaanada Arkiko iyo Masuuc ee iminka dhaca Eritrea sanadkii 1557 halkaasna waxaa ka dhashay loolan kale oo dowladeed oo aakhirkii dabayaaqadii qarnigii 19 ku soo afmeermay inuu Talyaanigu qabsado Eritrea iyo koonfurta Soomaalida 2 raadka labaadna waxa weeye burburkii iyo jabkii uu axmed gurey u geystay awoodii xabashada ee kristanka ahayd waxa uu sababay in deegaanadaas ay kasoo ifbaxdo awood kale oo ah gaala ama oromo waxa iyaduna xilligaas hoos u dhacday oo burbur ku bilaabmay boqortooyadii cadal ee islaamiga ahayd raadka saddexaadna waxa uu ahaa badiba dadkii Itoobiya oo islaamay qaatayna diinta islaamka xataa waxa ay ilaha qaar tibaaxayaan in 90% ay islaameen dadkii xabashida ahaa haddii aanay burtaqiiska kristanka ahi imanna xabashida kristanka ahi way baabi'i lahaayeen oo xabashi islaama ayaa samaysmi lahayd waxana ay ka mid noqon lahaayeen boqortooyadii islaamiga ahayd ee cadal waxay gashay saldanadii harar xilli rabash iyo fawdo ah waxana garaacis iyo fadqalaleyn ku sameeyay oromadii oo duulaanu galaabixiyay nidaamkii maamulka ee la kala dhaxlayay ee jiritaanka lahaana wuu gilgishay muddo 70 sanadood ah oo ka soo bilaabmay sanadkii 1585 hararna sidaas ayay ku weyday kaalinteedii iyo jiritaankeediiba ilaa laga soo gaadhayay 1847 xilligaas oo uu caynaanka u qabtay harar amiir cali ibnu daa'uud oo ka tafiir qabay salaadiintii ka soo arrimin jirtay harar nidaamkii maamul ee hararna dib ayuu u soo laabtay ilaa ay haddana mar kale Masar soo gashay harar oo ku soo duushay sanadkii 1875 markana harar ma ay haysan bedkii iyo dhulkii baaxadda lahaa ee ay ka talinaysay oo dib ayay uga soo baxday deegaanadii xeebaha iyo jasiiradii Sacdadiin amiiradii dhawaanaha ka arriminayayna ma ay awoodin inay awoodeedii iyo jiritaankeedii ay lahayd waayihii uu alkumay suldaan Cumar wal Samic dib u soo weeciyaan degmada kaliya ee ay ka talinayeen waxa ay ahayd harar gudaheeda markii ay alleysatay awoodii harar waxa xoogeysatay oo taliskii maroorsatay Cawsa oo ah boqortooyadii ay canfarta ama danaakishu markaa samaysteen waxana ay ahayd boqortooyo islaami ah oo si madax bannaan u arinsanaysay balse ma ay awoodin inay buuxiso kaalintii ay harar ka baxday mana ay ku guuleysan inay deegaanadii islaamiga ahaa ee ka ag dhawaa qabsadaan oo u taliyaan natiijadii ka dhalatay burburkii harar iyo boqortooyada canfarta ee Cawsa oo kaalinteedii buuxin weyday waxay sababtay inay qabiiladii Soomaalida ahaa islaayaan oo kala irdhoodaan awoodoodiina furfuranto berbere iyo seelacna waxa ay toos u hoos galeen taliskii shariifkii Maka ka arriminayay oo ahaa barsaabka khilaafadii Cusmaaniyadda u fadhiyay xaramka Maka waxa iyaguna markaa awoodeystay oo ku caqliyeystay burtaqiiskii xeebaha bariga Afrikana ka caydiyay Cumaaniyiintii kaalintii burtaqiiskana waxa ay geliyeen suldaan ina Axmed ah Cumaaniyiintaasina sanadkii 1796 ilaa 1804 ayay heshiis iskaashan buuraysi la galeen Ingiriiska waxana ay loolan la galeen qabiilada qawaasimta ee Khaliijka iyaga oo u kaashanaya gaashaanbuurtooda Ingiriis sidaas ayayna ku awoodeen in ay soo galaan dhammaan xeebaha Soomaalida iyada oo aan la dhibsanayn waxana ay awoodeen inay Muqdisho ka arrimiyaan
loolankii iyo rabshadii ka dhex taagnaa muslimiintuna waxa uu sababay inay odayaashii reer muqdisho dhambaal qayladhaana u dirsadaan suldaankii qabiilada qawaasimta ee khaliijka sanadkii 1756 dhammaalkaasina waxa uu xambaarsanaa fariin ah inay diidan yihiin cumaaniyiintu xukunka boqorkii islaamka ee Sinjibaar shareecadiina ay dayaceen madaxdii gaaladana ay la heshiiyeen oo weheshadeen dadkii muslimiinta ahaa ee jiritaanka lahaana ay gumaysteen sidaa awgeedna ay Soomaaliya ka kaceen haliyeyadii weligoodba shareecada islaamka u gargaarayay si ay dadka wanaagga u faraan xumahana uga reebaan ayna ka dalbanayaan qawaasimta inay carab iyo cududba ugu gargaaraan badiba geyga Soomaaliyeedna qarnigii 18aad waxa uu ku qaatay qabyaaladda iyo isrisku faquuqista ilaa maanta ka taagan geyga Soomaaliyeed gaalihii ama oramadina waxa ay dib u soo galeen deegaano kamid ah dhulka Soomaalida xusuus qorrada socotadii reer Yurubna waxaynu ka helaynaa in magaalooyin xeebeedyada Soomaalidu ay raacsanaayeen suldaankii Sinjibaar iyo suldaankii qabiilka Galleedi ee Soomaaliga ahaa waxaana aagagaas ka jiray qabiilo xoogan oo qaab aan madax bannaani buuxda ahayn isu maamulayay gaashaanbuurna la ahaa cumaaniyiintii dhanka kalena Saylac iyo Berberi waxa ay magac ahaan u raacsanaayeen khilaafadii Cusmaaniyadda gaar ahaan taliskii Mukha ee Yamaneed inkasta oo ay ganacsi ballaadhan la galeen Ingiriiska muddadaas qarnigii 18aad oo dhan ilaa horaantii qarnigii 19aad ahayd ayaanu dalweynihii Soomaaliyeed helin dawlad midaysa oo jiritaankiisii sii joogtaysa waxay sababtay inay damcaan oo hungureeyaan awoodihii shisheeye ee gumaystayaasha ahaa hanashadiisa aakhirkiina waxa uu xaalkiisu ku dambeeyay Ingiriis Faransiis iyo Talyaani gobolaysta iyo Maneelkii xabashiga ahaa oo waax dhan la fuqa herarna markaas ayaa ugu dambeysay saaxadda jiritaanka oo Addis Ababadii ay sahayeen ayay dadkeedii u jabiyeen oo u qabteen waxaana markaas u dambeysay ee taariikhda ka baxday ka talinayay qoys reer Jabarte ah oo la xididay ashraafta sida uu soo guurinayo Richard Barton intaas ayaynu ku soo koobaynaa muuqaalkeenii maanta wassalaamu calaykum